إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وسورة الأعراف آيات 143 ayaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala. qisadaynu ku soo dhex jirnay waxay ahayd qisadii dheerayd ee nebi muuse calayhi salaam iyo qolyihiisii. waxay noogu joogtay qisadu iyadoo ilaahay uu la ballamay nebi muuse 40 habeen kadib duurusiina uu kula ballamay. walaalkii haaruun buu la hadlay calayhi salaam oo isaguna rasuul ahaa. waxa uu sheegay ummaddani inuu kusiimo kaga sii noqdo oo uu sii maamulo oo arrimahoodana uu sii nidaamiyo, waayo ummaddu fawdo aqbali mayso ama suuragal maaha garba siman inay ku socdaan. ee diintooda iyo dunyadoodaba waa inay helaan cid hoggaamina oo u nidaamisa arrimahooda oo lagu yididiisho oo arrimaha lagu murmaana ay ku soo afjarmaan. laa yasluxu nnaasu fawda laa suraata lahum. dadku suurtagal maaha inay noqdaan dad iska socdan oo aan madax lahayn. dardaarankiina wuu siiyey inuu marlayba dad mufsidiina iyo muslixiin baa ayaa la ysu hayaa, cid wax hagaajinaysa iyo cid wax kharribaysa. markaa dadka muslixiinta ah in awooddooda ay badato, mufsidiinta ay iska jiraan. qaala allaahu tacaala, ilaahay baa waxau idhi walammaa jaa'a muusaa, nebi muuse markii uu yimi limiiqaatina, ballankayagii kolku ku yimi, wa kallamahu rabbuh, ilaahiisii uu la hadlay. qaala nebi muuse waxau idhi arinii itusi, andur ilayk, aanku eego, ilaahay u iskay tusi. qaala markaa ilaahay baa wuxuu idhi lan taraanii, ii arki maysid, walaakin indur waxaad eegtaa ilaljabali, buurtaa eeg. fain istaqarra makaanah, haddii buurtu meeshiisa uu ku sugnaado, jabalkaasi ama buurtaas, fa sawfa taraanii, hadhow baad ii arki doontaa. falammaa tajallaa rabbuhu, markuu ilaahiisii isu muujiyey ee uu istusay, liljabali buurtii, jacalahu wuxuu ka dhigay dakkan mid burburay ayuu ilaahay ka dhigay subxaanah. wa khara muusaa, nebi muusena waa dhacay saciqan, isagoo waleeray oo miyir doorsoomay. falammaa afaaqa, markuu soo miyirsaday nebi muuse calayhi salaam, qaala wuxuu idhi subxaanak, tansiihan lak, ilaahayow adigaa xumaan ka hufan, inaad wax kari weyda ka hufan. tubtu ilayka, waan kuu toobad keenay, wa ana awalulmu'miniin, kuwa ugu horreeya ee rumaysan baanahay, wax kastoo in la rumeeyo u baahan. nebi muuse ilaahay buu yimi calayhi salaam, nebi muuse calayhi salaam ilaahay buu yimi subxaanahu wa tacaala, waa hor yimi. wa kallamahu rabbuh, ilaahay baa la hadlay markaa, liannahu kaliimuraxmaan ayaa magaciisu ahaa. kaliimuraxmaan, kii ilaahaysuu la hadlay. wuu jeclaystay markaa hadalkii ilaahay buu jeclaystay, waa muraaqooday, waa u sii jibbooday. kadibna wuxuu jeclaystay bal in maqalkaa hadalka uu ugu darmo muuqaalku, oo sida la ogsoon yahay uu ka xiisa badan yahay maqalka waxaa ka sii xiisa badan muuqaalka. oo dee laba arrimood baa qofkii isu raacayo, jacaylka iyo dareenka maskaxdiisa way u sii kala weyn maqalkiiyo muuqaalku, oo muuqaalkaa ka sii cajo badan.
sidaa daraaddeed ayaa saynu aayadda ku arki doonno sharaxeeda aakhiro ayaa ilaahay u dambaysiiyey aragtida ay mu'miniintu isaga arkayaan ee jannada ku arkaan ilaa adduunyadii arrimaheedii way kala dhiman yihin marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaygiisii aynu maqlaynaa laakiin aragtida aynu arkayno isaga jannada ayaa ilaahay inoogu dibdhigay allah inoo aqbale taasi waa taa weeye oo labaduba halkaasay israacayaan liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada ilaahay baa wuxuu idhi samafalayaashu waxa ay leeyihin tii wanaagga badnaydoo jannada ah iyo dheeraadoo aragtida ilaahay ah allaahuma ajcalnaa min ahliha baynu leen waxaa kaloo jira nebi muuse calayhi salaam sidaynu halkan dambe ku arki doonno markii hore looxaantii wuu iska sitay ilaahay baana u sii sheegay inay reer banu israa'iil dibi caabudeen haddana markuu arkay iyagiiyo dibigii dul fadhiya iyo foolxumadooda waa kii looxaantii tuuray ee muuse nebi haaruun ku dhegay macnaheedu waxa weeye aragtidii uu arkay reer banu israa'iil oo dibi caabudaya dareen aad u naxdin badan bay ku samaysay waayo intii uu maqalka unahaa ila ilaahay baa u sii sheegay inay caabudeen dibiye wuu iska sitay looxaantiisa mar alla markuu foolxumadii arkay ayuu dabeetana tuuray marka haadaa yadullu calaa ana aru'yata tu'ahiru kaiiran akara min asamc aragtida in ka badan inay saamayn leedahay muuqaalku uu saamayn leeyahy baad halkaa ka arkaysa markaasaa wuxuu idhi rabbi arinii andur ilayk ilaahay aan ku arka iskay tusi ilaahayna wuxuu idhi subxaana de isagoo qadaray adduunyada inaan lagu arag aakhira un jannada ay mu'miniintu ku arkayaan ayaa wuxuu idhi arki maysida buurtaa eeg buurtaasaan istusayaa weeye markaa haddii ay halkaa buurtaasi ku sugnaato waad i arki karaysa oo aragtidayda waad xejin karaysa haddii kale ma xejin karaysa falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan buurtii wuu ilaahay istusay way gariirto way kala dhaqaajisa muusena waaba xejin waayeba waa suuxayba khalaas waa suuxayba kolkuu soo miirsaday buu dabeetana soo noqdo wuxuu idhi ilaahay waan kuu toobad keenaye codsigaygii mar haddaanad kolkii hore ii fasixin dee waxaan la ii fasixin baan galay ka soo noqday ilaahay kuwa aragtidaada rumaysan jannadaana ifka inaan lagu arkayn baan rumaystahay wax kasta oo aad amartay in la rumeeyaa baan rumaystahay isdhiibiddaa dhammayska tiran buu sameeyey nebi muuse calayhi salaam waaye ii arki mayse maxaa macnaheedu noqonayaa lan taraanii halkaa ii arki mayse sida culimmada ahlu sunna waljamaaca ay qabaan iyo muslimiinta sunniga ahee toosan waxa weeye mu'miniintu inay ilaahay ku arkayaan jannada laakiin ilaahay aan adduunyada lagu arkayn labada arrimood baa la iswaafajinaya oo labadaasaa la isla akhriyaya waayo ilaahay baa wuxuu uhi laa tudrikuhu alabsaaru wa huwa yudriku alabsaara wa huwa alatiifu alkhabiir waa masaa'ilka caqiidada weeye ee u baahan qofku sida fiican inuu ka aamino laa tudrikuhu alabsaar wa huwa yudriku alabsaar wa huwa alatiifu alkhabiir aayaddaasi adduunyada ka hadlaysa ishu ilaahay ma qabanayso isagu indhaha wuu arkayaa waa mid addoommaha u naxariis badan weeye ilaahay marka wakhtigan ilaahay uhi ishu qaban mayso adduunyada aayaddanoo kale isku midiin lan taraani iyo laa tudriku alabsaar arag la'aan bay sheegeen labaduba adduunyada aayadaha iyo axaadiidta sheegaya in ilaahay lagu arkayo jannadana waxaa ka mid a suuratulqiyaama akhri ilaahay baa wuxuu uhi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaal maalinta qiyaamaha way iftiimayaan farxadda ay faraxsan yihiin daraaddeed ilaa farxadda wejigay ka muuqataa ilaahayna way eegayaan ilaa rabbihaa naadira wejiyadeedas ilaahayna way eegayaan waxa weeyaan waa wejiyada mu'miniinta wejiyada gaaladana waxa ilaahay uu ka warramo wuxuu idhi kallaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun maalinta qiyaamaha ilaahay baa laga xijaabayaa oo gaaladu ma arkayaan rabbi labada aayadood waxay tilmaantay inay mu'miniintu arkayaan ilaahay jannada ku arkayaan aayadana waxay tilmaantay gaaladu inaanay ilaahay arkayn
maalinta qiyaamaha xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxiixa maalin maalmaha kamida habeenada kamida dayaxa eegay markaas wuxuu leeyahay dayaxa 14aad ka warrama miya aragtidiisu wax cidhiidhi idinka galayaan oo idinka qarsoomaya maya ilaahay bay idin sidaa u arki doontaan dayaxa u arkaysaan oo kale laa tudaamuna fi ru'yati idinkoo aan isku cidhiidhiyeynin oo itusiya mee iyo dadku adduunyada waxyaabo badan ay xiisaynayaan bay ka bogan waayaan aragtida marka itus baa ka dhacda halka ma jirtee si wanaagsan baa isha uga boganaysa markaas aayadaha iyo xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam intuba waa isku macnay u jeed isku dhanbay u jeedaan ilaahayna mu'miniintu waxa ay ku arkayaan jannada ay ku arki doonaan ilaahay ehelkeeda hay naga yeedhaan saas aayadaas ishkaalkii nooca ah ee qofka ku soo aroori lahaa hadii la isweydiiyo marka arrin kale oo la yiraahdo rasuulka sallallahu alayhi wasallam miyaanu arag nabi maxamed habeenkii la dheelmiyay miyaanu ilaahay arag suuratu najm sida ilaahay qaybaha hore oo kaga waramayo culimadu waxay u badan yihiin asxaabtu ridwaanullaahi calayhim malakul jibriil inuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayay u badan yihiin asxaabtu ridwaanullaahi calayhim isaga laftiisa axaadiisa saxiixa muslim ku sugan markii la yidhi ilaahay ma aragtay nuurun anna araah waxa ka muuqanaya inaanu arag ayaa xadiidka saxiixayna u tilmaamaya inta markaynu ka soo gudubno waxaynu sii wadaynaa qisadii qaala markaa ilaahay baa wuxuu yidhi subxaana yaa muusa nabi muusow inni istafaytuka waan ku doortay cala naasi dadkii baan kuu doortay birisaalaatii risaalooyinkaygii baan kuu doortay wa bikalaamii fariimahaygii waxyigaygii baan kuu doortay fakhud waxaad qaadaa maa aataytuka kanaan ku siiyey qaad ee waxyiga ah wa kun min ashaakiriin kuwa mahadnaqaya noqo wa katabnaa lahu fi lalwaax looxaantu nebi muuse sitee waxaan ugu qornay min kulli shayin wax walba oo u baahan yahay mawcidatan waano wa tafsiilan iyo shay u cadcadaynaya likulli shayin wax walba fakhudhaa qaad buu ilahay yidhi kitaabka ah iyo looxaantaas qaad biquwatin dadaal ku qaad waamur qowmaka qoladaadiina far ya'khudu ha qaadeenoo ha ku camal faleen biaxsanihaa keeda wanaagga badan ee muxkamkee lagu camal falayo sawriikum waxaan idiin ballanqaadayaa sawriikum idin tusin doonaa daaralfaasiqiin kuwa dhulbi'iska ah ee faasiqiinta ilaahay ka fogaaday subxaana hoygoodaan idin tusin doonaa guryahooda meelaha ilaahay uu ka halaagayo waan halaagi doonaa way idin arki doontaan iyadoo ilaahay uu halaagay nabi muuse ilaahay uu la hadlay kolkii arrinkaa hore iska dhammaaday wax weyn inuu ilaahay siiyo deeqa buu sheegay waa diin iyo doorasho diin baa ilaahay u siiyey dadka hogaamintoodiina wuu doortay inni istafaytuka cala annaas maxaa loo doortay risaalaadkii waa fariimihii ilaahay ummadda uu gaadhsiinayla waa rasuule waa kalaamkii ilaahay marka diintaas doorashadaana ilaahay uu siiyey diintaa qaaligaana waa u doortay in qofka la doorto oo ilaahay uu doorto hogaamintii ummadee diintana wax weyn weeye waa ta u qaalisa waayo dadkii buu saxayaa halkii ilaahay laga duwayey isagu ilaahay buu ku jahaynayaa si ay dadku ilaahay u waafaqaanoo jannadiisa ay u helaanoo raalli noqosho iyaguna ay u badbaadaan ilaahayna xaqiisii ay u siiyaan waxaase midhka meesha ku jiraa waxa weeyaan waa lagu doortee dhaqaajiun maaha xil weyn baa ka dhacay meesha xilku culays buu leeyahay waa ammaano ammaanadaa kolka aad dheefteeda helayseed doorashadeeda helayseed ammaanteeda helaysa waa in dadaal ka horreeya laabudda an yakuuna hunaaka juhdun bashariyun jahiid dadaal bani aadamo aad u labanlaabani waa inuu jiraa fakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin khud maa aataytuk xagga dambena waxa ilaahay u idhi fakhudhaa biquwa iyo fakhud maa aataytuk qaad waxa aan ku siiyey aayadda dambaad sii fasirayso dadaal ku qaad baa layidhi fakhudhaa biquwa dadaal ku qaad marka waa inaanad waxba la hadhin naf iyo nafiis naftaada maalkaaga wakhtigaaga qaaligaaga waxaad u huraysaa fii sabiili ixqaaqi alxaq saad xaqa u xaqiijin lahayd ilaahayna u mahadnaq kol haddii diin lagu siiyey kol hadduu ilaahay doorashadaa wanaagsan ku waafajiyey mahadnaq
looxaantii baan siiyeyba ilahay uhi dee loogu qoray waxyigaoo waxa ku qoraa waana iyo shay walba iyadoo la kala caddaynayo ayaa ilaahay ugu qoray kolkaasaa dabeetana dadaalkaasaa la faray qoladiisiina waxa la iyaguna ha qaadeen kitaabka hadda qaadidda ha u fahmin in garabka la gashado iyo in laabta lagu qaado iyo in meel wanaagsanun lagu qaado waxa weeye biquwa baa la socota waxaa la socdaa ya'khuduu biaxsaniha ha ku camal faleen wey meesha ku camalfal baa la doonayaa axsan waa ka sii wanaagga badan oo qaarna waa la barakaysanayaaoo waxyigii waa lagu cibaadaysanayaa oo waa kii la nasakhay qaybina waxa weeye axsankiioo waa kii sii wanaagga badnaa isaga waa la dhaqan gelinaya muxkam baa la yidhaahdaayoo waa lagu camal falayaa isagana bushaarada ilaahay uu siiye waxa weye dadku ilaahay marka ay ka tala qaataan markay waxyigiisa aqbalaan markay diintiisa guddoontaan ee ay qaadaan cadowgaa ilaahay uu ka horduwayaa biidnihi tacaala sa'uriikum daara alfaasiqiin kuwa faasiqiintaee dhibka badan ee caqabadda idinku ah wuxuu ilaahay u ballanqaaday inaan ka halaagi doono marka halkan haddaba waxa ilaahay uu ku tilmaamayaa labadan aayadood soo socda inkaarta ka dhacda dadku inay diinta ilaahay weydaartaan iyo aayaadka ilaahay waa cuquubatu takaburi waalkadib bisarfi almutakabiriina cala alintifaaci biaayaati illaahi tacaala mar hadday dadku diinta ilaahay sarugaan oo ay ku filaan weyda iimaansan waayaan ay ku qanci waayaan inay diinta ilaahay ku filan tahay bal barakala'aanta dadka ku dhacda iyo fahmala'aanta iyo madoobaadka dadka ku dhaca ilaahay uu tilmaamaya allah wuxuu idhi sa'asrifu waan duwi doonaa can aayaatii aayadahayga waxaan ka duwayaa aladiina yatakabbaruuna fi lard kuwa dhulka isku weynaynaya bikayri alxaqi gardarro iyo xaqdarro wain yarow kulla aaya hadday mucjiso kasta arkaana laa yu'minuu biha ma rumaynayaan wain yarow sabiila rushdi waddo kasta oo lagu hanuunaya hadday arkaan laa yatakhiduuhu sabiilan jid kama dhiganayaan wain yarow sabiila alghay waddadii lagu ambanayay ee lagu lumaya hadday arkaanna yatakhiduuhu sabiila wadda ay maraan bay ka dhiganayaan daalika taasi waxay ku dhacday biannahum kadabuu biaayaatina aayadaha yagii bay beeniyeen wa kaanuu canhaa haafiliin waxay noqdeen kuwo aayadaha ka warla oo aanu soo jeedin oon baraarugsanayn waaladiina kadabuu biaayaatina kuwii aayadaha yaga beeniyey buu ilahay yidhi walliqaa'i alaakhira iyo la kulanka aakhiro kuwa diiday xabidat acmaaluhum camalladoodii way bureen wax ka soo qaad ma leh hal yujsawna miyaa lagu abaalmarinaya laguma abaalmarinayee ilaa maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayeen unbaan ku abaalinayaa baa ilahay uhi iyagoo waxaa sameeyey ma dulmiyaya abaalkoodii umaan marinaya kuwa waan ka duwi doonaa baa ilahay uhi dadka kibra ee xaqdarra ku kibraya aayadahayga oo see looga duwayaa dee waana intifaacsanayni ma intifaacsanayaana qofkii waxaa la yidhi ma waxaad dooratay diin mise diinla'aan ilaa kibirkiina waa diinla'aan tawaaducii iyo isdhuldhiggii iyo khushuucdiina waa diintii diinla'aan baan doortay buudi dee barakala'aantaasaa ku dhacdayoo waxyigii ilaahay ma fahmayo umana dhaadhacaya ayaan darradaasaa ku dhacdo qalbigiisuba markaa waxyiga ehel u noqon maayo marka hadda waxay tilmaamaysaa shayga la yidhaahdo kibirku inuu yahay waxyaabaha waxyiga qulubta ka buufiya ilaa kibirkana nabigu uu sheego calayhi salaatu wasalaam oo dhar wanaagsan iyo kaba wanaagsan oo la xidha maaha buuli kuwaasi kibir maaha laakiin kibirku waxa weeye dadkood yaryaraysatoo tidhaahdo noocani way yaryaryihiina siday ku ag yimaadaan ama ay kula murmaan iyo xaqood ka santaagto ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday markaa aayad kasta arkaan mucjiso kasta arkaan qur-aan kasta arkaan ma raacayaan ma rumaynayaan hadday arkaan waddada xaqa ah ma raacayaan hadday waddada baadilka arkaan markaasay qaniinayaanay raacayaanay dabagelayaan macnaha barakala'aanta qofkii ku dhacaysa waxaa ka mida xumaanta iyo samaanta xumaantuu xiisaynaya wanaaggana uu iskaga tegaya sharka iyo khayrka waxaa u aloosan uu aad u dhadhaminayaa sharka balaayadaas waxay ugu dhacday biannahum kadabuu biaayaatina wa kaanuu canhaa haafiliin marka halkaa waxaa aayadda inooga muuqday markaa dembi gasho dembi kaleu kuu sii dhiibaa kolkaa dembi gasho mid kaleu kuu sii dhiibaa mid kaleu kuu sii dhiibayaa ilaa uu qofku qaato magacan ilaahay u bixiyaa haafil waa mid warla ma garanaya meel la isla maraya iyo meel lagu socdo iyo meel la joogo iyo sirta halkan loo joogaba ma garanayaba
وقف وحكو فوررانون إن ديرقردي أقويها تونا أهين إيمان لانتو أيان درهدا سيلاده والذين كذبوا بآياتنا واللقاء الآخرة حبطت أعمالهم هذي بينينا آيات كيلا هي لكلن كي آخرة محا صهري أركانتي إيمان كاميشا كبحدي دي إيمان مالا دي قفكاس كل الدي إلهي وبينيي آخرنا أري قرشها وقود شرنبا دي عملوا ما أستحن بولهاي عمل كيودا مو كبوري قصة با إلهي وسي وضا يا سبحانه يا نبي موسى وإنتي ومقنع لو قدم بيدتك نبيجي وكجت هارونا لقى حوق بطي دجال باكر دعاه دجال كيبا لقى سوق جوليسته ولا لا سوق عاي ومو يراي سنين وسلوا أود شكت موسى سامري من اللي هذا صوب حي مفسدين تبوا مدح كالنقضي وما مرايا ولا إسكاشضي تبتنا أرنك سيدنا ودعي قال الله تعالى إلهي بأوحل واتخذ وحا أي سميستين قوم موسى نبي موسى قلديس من بعده انتي وكسو مغنى نبي موسى كدب وحا كسميستين من حليهم وحي لا اسكو قرحيني عجل الدبي بي كسميستين جسدا جدأه له خوار رواقنا له وعيا ألم يروا بولهاي سوى كورمايا ayaan darada ku dhacday alam yarow miyaanay arkaynin dadka dibiga caabuday annahu dibigani la yukallimuhum inaanu la hadlayn wala yahdihim sabiilan jidna inaanu tusinayn ittakhaduhu way samaysteen oo way caabudeen wa kaanu zaalimiin dulmi falayal bay noqdeen walamma suqida fi aydihim markii gacmahooda lagu riday dhabanada ay qabteen waraaw ay arkeen annahum qad dhallu inay anbadeenay lumeen qaaluu waxay yiraahdeen la illam yarhamna rabbuna hadaanu ilaahay iyagu noo naxariisanin wayaghfir lana noo dambi dhaafin lanakunana min al-khasiriin kuwa guul daraystay baanu noqon doonaa bayda ayaan daro ayaa nagu dhamaatay dadka inta ay dadka wanaagsan khayrka ka shaqeynayaan iyo dhismaha ummadda in diinta aqeedadooda loo dhiso oo diintooda loo dhiso oo dadnimadooda loo dhiso adduunyada loo hagaajiyo aakhirada loo hagaajiyo ummad ba iyaguna jirta ibliisku ka dhaxadlayo oo ibliisku soo riixayo oo uu ku shaqeysanayo intaaba kala furfuraya aqeedada dadka ka furfurayo ka burinaya oo cibaadada kala dagaalamaya oo diinta iyo dadnimada wanaagsan kala dagaalamaya mufsidiinta dhulbi iska shaqadoodu waa taa ummadii waxa ka soo dhaxbaxay mid iskaga dhax jiro gaal ahaayo Muuse Saamiri la yiraahdo Muuse Saamiri diintii iyo dhaqankiiba waa kan ka fasaadiyay halka qaaruuna dhaqaalihii uu ka fasaadiyay waa ummadii la soo badbaadiyay cadawga laga soo badbaadiyay balaayadani ka soo dhax kaacay ilaa waxa gumaysiga la yiraahdo had iyo jeer raad buu leeyahay oo dad baa munaafiqiin noqda marka mustacmir mid sheeganaya iyo marka gumaysi meeshii jiro dad buu qulubta kaga neefaya oo afkaartiisa soo xambaaranaya oo nashuushadiisa iyo balaayadiisa dadka la soo dhax fariisanaya xataa hadii la xoreeyo kadib meeshii bay la soo fadhiyaya intuu nabigu xoreeyay calayhi salaatu wasalaam Madiina sidoo kufrigi laga xoreeyay hatana munaafiqiin baa dhax fadhiyay iyadoo laga xoreeyay fircoon iyo qoladiisii reer banu Israa'iil hadana kuwana ka soo baxay qaaruun iyo Muuse Saamiri baa ka soo baxay marka macaasida iyo shirkiyaadka iyo khuraafaadku lama sahashan karo dadka siyaabo yar bay ugu dhibqayaan oo shaydaanka u qurxinaya marka Muuse Saamiri wuxuu u sameeyay qoladiisii xulidii wuxuu ka sameeyay xulidii waxa weeye waa awzaaran min ziinati alqawm waa qalabkii ay ka soo qaateen reer fircoon iyo qoladoodii wax ka soo alaab ka soo amaanaysteen amaanadaasi way haysteenoo waxay isku qurxin jireen aroosyada iyo xafladaha ay reer banu Israa'iil baa isku qurxin jireen وما حيجوا ودي ذا وحي يسكو قرحيان فرعون يقولوا ذا محي وحجسوا أمانة سنة وحن فراغ بدن جميع الله أقرأ الله ما أقرين إنه هيستان على يسكو قرحيان ذهب يلعق يحرير يا الله ما أقرينه يدين كنت كي طبقات هوسا هاي لجومي سنة يبات هنا وما قلنتانه ما لها كوكشان ما يسان مرمر كاسم من ذي الأمانة سنة ينابو أرنكوها لهدي لقى حق بطه
alaab yaroo isku dhalaalisana lama la ogolaan maayo dadkaaga iyo ehelkaaga midna loo ogolaan maayo takaliftay inay markaa soo ammaanaystaan baa taas wuxuu dhan kale uga soo wareegayo war faraacinadii waynu ka xorownay buuri Muuse Saamiri reer banu Israa'iil oo faraacinadii ilaahay naga reebiyo ka xorownay laakiin xooga alaab baa inaga hadhay alaabtan soo ururiya waan gubaynaa waan dhalaalinaynaa ma sidaasa waayahay baa leeyahay waa la soo ururiyay ninkana wuxuu isugu daray ceeb iyo caydh ilaa hadday alaabtan iska haystaan cadowgoodii bay ka dhaxleenay qaniimadii iyo adduun bay u noqon lahay caydh buu ku sameeyey alaabtii waa kan ka xaalufiyey ceebna waa ku sameeyo dee ilaahay buu ka horgeeyey oo cid aan ilaahay ahayn bay caabudeen labadaas isugu daray ilaa mufsidka shaqadiisu waa labadaas diin iyo dunya buu kugu ceebayna baashii buu isku dhalaaliyey tibi buu ka sameeyey waxbuu ku farsameeyey sidaa suuratu Taaha ilaahay aad uga waramay halkan in ka sii faahfaahsan ilaan ilaahay waa wuxuu sabab uga dhigayaa bal dadkan waa lagu tijaabinayaa si ay u go'aane cijlan jasadan lahu khuwar waa dibi jir buu leeyahay cina waa leeyahay jirkaas waa nooc quraanku inuu jir lahaabo tilmaamay inuu bahalkani jir leeyahay ayuu tilmaamay dhawaaqna leeyahay dhawaaqa ma nolol nool yahay baa ka keenaysa talow mise waxa ka keenaya dee botonno iyo meeluu garaacaya markaasuu kaga sanqarinaya sida bahalkan uu toygan yare loo egeysiiyo xayawaanka ama qofkoo kale siduu dee ama u hadla ama u jiiqjiiqleeyo waa iska suuragal taasaa isaga badanta arrinkii halkaas soo hor fadhiisiyey ummaddii wuxuu u sheegay ashahaadanaya mu'miniinta uu ku yidhi Muuse ilaahu doonay waa kan waxay nagu cusub soo kan ma arkaysaan kanunbuu Muuse doonayay wuu anbadoo wuu seegay kanuu doonayay marka ilaahiinu waa kan Muuse aad buu la nabi Haaruun aad buu la dagaalamo warkadaay aad waxba ula ma harin tabatana waxay lan nabraha calayhi caakifina hatta yarji'a ilayna Muuse ha ku daalin kan ka tagin meeyne ilaa Muuse soo noqonayo calaan buu ilaahay dusha uga tuuray subxaanahu wa ta'aala wuxuu tilmaamay meesha in aqliga dhintay oo garaadkii baabaay oo ummadii waxba kala miisaami kari waayay markaas ilaahay uu alam yaraw annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin miyana arkaynin bahalku inaanu la hadlaynin ilaa hadli waayay muxuu yahay sidoo ilaahu noqonaya ma hadli kare miyana arkaynin inaanu jiduu ku hanuuninayaa jirin ilaahan waxba hanuuninay illa ilaah ma ahe ilaah waa inuu hadlaa wixii keenaa dadkana waa inuu hanuuniyaa sida ilaahay ummadda uu kala hagaya subxaanahu wa ta'aala astaamihi ilaahba inaanu lahayn miyana arkaynin وعنانت إلهي طالمين بين نقدين بيقول هاي سبحان طالمين بين ها كدب نبي موسى ويمي نبي هارون أدبو وعدي مركز سيطة بيتنا أركان عيبته ذي يبلاي ذا كل عضايا ولما سقط في أيديهم waxay tilmaamaysaa inay murugoodeen ila dadku been isuma sheegi karaan qofku uu arkaya wixii xaqiiqo ah waa la iswaraysto waxa la arkay ilaahay uu ku sheegay inaanu kan ahayn ha iska niiqniiqleeyaba oo cidii dibigoo kale waaqwaqdiisiba ha iska yeeshay inaanu waxan ilaah ahayn bay arkeen waxna u tarayn bani aadankana la mid ahaynba ee wax yar oo la soo nabnabay uu yahay bay arkeen way murugoodeen marka walamma suqita fi aydihim culimadu waxay ku fasirayaan markii ay murugoodeen dhabanada ay qabsadeen saqada fulaan fi yadayhi hebel gacmihiisu ku dul kufay ama gacmuhu saa u qabsaday wallahi ninkii hebel uu murugoodo dhabanahays baa ku dhacay bayna dhabanahays labada dhaban buu saa u qabsaday marka waa qofkii oo gacmihii ku dul kufaydu waxay sheegaysaa cajsiga iyo foolxumada iyo tamar darrada ka timi murugada ayay ka turjumaysaa waa qofkii intuu gacmihiisii ku dul kufay murugooday way murugoodeen macsiyadu murugay leedahay cibaadaduna farxad bay leedahay waa macruuf weey markaad cibaado dhamaystirto farxad ayay leedahay saa uu nabigu kaga warramayo leeyahay qofka Soomaali laba farxadood buu leeyahay farxada dunyada iyo farxada aakhira ha cibaado waliba farxad bay leedahay mabsuud baad noqonaysaa xaaraanta iyo macaasida mar alla markaa uu qofku galiyo markuu ka baxana war maxaa ku geeyay boodhanay maxaa ku geeyay markuu galayana hareeruhu iska eegaya uu tuugaysanaya waa inta damiirkiisu nool yahay marka uu gacanta ka qaadana markaas uu murugoonaya waxay arkeen annahum qadallu inay lumeen kaalimo ku dhaceen dabadna waxay ilaa in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin hadaanu ilaahay noo naxariisanin
waxaanu noqonaynaa haddaan ilaahay noo naxariiso oo aanu noo dembi dhaafin kuwa khasaaray baan noqonaynaa. saasay u murugoodeenoo taas laftigeedaa wax weyna inay macnaha shaygii dembiga ahaa in aad ka murugooto ood ka toobad keento wax weyn weeye. waxa ayaan darradu ay tahay inuu ama qofkii quusto ama macaasidiiyo dembigii hore uu sii wado. ta murugada weynabaa taas. nebi muuse haba ka sii murugoodaanoo dee ha maqlaan haaruunbe, laakiin haddana nebi muuse calayhi salaam wuu yimid oo waa kanoo isagiina wuu soo dhigtay isagoo soo socda nebi muuse. taasuu ilaahay ka warramayaa marka. walammaa rajaca muusaa, nebi muuse markuu soo noqday ilaa qowmihi qoladiisii buu soo noqday qadbaana isagoo cadhaysan asifan murugaysan. qaala wuxuu idhi bi'sa maa khalaftumuunii, waxaa xumaaday wixii ay iga dembaysiiseen min bacdii aniga dabaday. waxa igaga wakiil noqoteen ee dabaday samayseen baa aad u fool xumaaday. acajiltum miyaa ka degdegteen amra rabbikum, ilaahiinna amarkiisa. amarkii ilaahay maydaan qaadan, mabaydaan sugin wuxuu idinku ballanqaadee waa degdegteen miyaah. wa alqa alalwaax, looxaantii wax loogu soo qoray ee waxay iguu qornaa uu sitayna waa kaa tuuray. wa akhada bira'si akhiih, waxa uu qabtay madaxii walaalkii foodduu ku dhegay. yajuruhu ilayh, isagoo saa u soo jiidaya. wuu soo jiidaya uma tudhaya, waa cadhooday. qaala markaa haaruun baa wuxuu idhi ibna ina walaalow, ina walaalow, ina hooyow, ninkaannu xagga hooye ka walaalahaynow. inna alqawma qoladii istadcafuunii way tamar darraysteen, way iga xoog bateen. wakaaduu yaqtuluunanii, waxay u dhowaadeen inay dilaan. falaa tushmit biya alacdaa, haygaga farxinin cadow. walaa tajcalnii haygu darin maca alqawmi aldaalimiin, qolyaha dulmi falayaasha ana haygu darin. iga daa walaal, kuwaa haygu darine, anaa diiddane. sidaasuu yidhi. nebi muuse wuu soo noqday calayhi salaam. markuu soo noqday wuxuu arkay dee qoladii oo haba toobad keeneene ama ha ka murugoodeenba ee bahalkii dee si uunu sii dul fadhiya oo ka agdhow sawirkiibuu wax ka arkay. arrin kolkuu halkaa marayo dee ummaddu iyagoo muwaxidiina ka yimid ee uu ka soo saaray cadowga adogayda gumaysanaya intaasoo sannadaha aadka u faraha badan ee dadkoodii laayay. markii uu ka soo badbaadiyuu islahaa ummaddani maantay ugu roontay miyir qabtaa oo shareecaddooda ay ku dhaqmi karaan, ayaa wuxuu arkay iyagoo foolxumadani ay ku dhacday. aragga waxaa la yidhaahdaana sidaynu horeba u soo xusnay wuu ka saamayn badan yahay maqalka. markii horeba ilaahay wuu sheegay inay ibtiloobeen qoladiisii oo ay caabudeen dibi. qoladaadii waanu fitnaynay oo muuse saamiri baa dibi u sameeyey oo way caabudeen, taa loo soo sheegay. hadalkii ilaahay buu hayay, laakiin araggii markii uu arkay ayaa muraayaddu jabtay. qaac markaasuu qarraqmay, markaasuu aad u naxay. markaa sifaduu qaatay waxa weeye qadbaana asifan, waa cadho iyo murugo, cadho iyo ciil isa saaran oo ku gadhoodhay. taasaa ku dhacday nebi muuse. marka waxay ka turjumaysaa qofku marka uu shayga macsiyada iyo foolxumada arko, diinta ku xune, dalka ku xune, dadnimada ku xun, waa inuu aad uga murugoodaa, aad uga xumaadaa. asxaabtu waxay noo sifaynayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxay leeyihin rasuulku waa nebi maxamede, tiisa uma cadhoon jirin. isaga haddii arrimihiisa meel lagaga dhaco kama cadhoon jirin ama isma dhibi jirin. laakiin marka diinta iyo dadka meel lagaga dhaco indhaha casaanayo, xididadaasaa karayayo, khudbad adag buu jeedinayo, aad buu u diidayay arrintaa. qadbaana asif wakaa waa sidaynu inagu nahay baa la odhan karaa cagsigeed badankeennu. qofka tiisa marka la taabto ama ururkiisa ama xisbigiisa ama kooxdiisa ama reerkooda ayuu dabeetana qofku noqonayaa qadbaana asifan, mid cadhaysanoo murugaysan buu noqonayaa. gobanimadayada iyo sharaftayada iyo haybadayadiiba wax loo dhimay buu odhanayaa. diin iyo dal iyo dadkanena ma leh, markaa macnaha uma cadhoonayo. arrintaasina waa arrin aad u cajiiba. nebi muuse looxaantii buu tuuray. miyay jajabeen mise way fayoobaayeen?
culimada qaarkood baa idhaahda way jajabeen laakiin aayaddu may muujin ama ha jabaan ama ha fayoobaadaane meesha waxa ka muuqanaya un cadhadu halkay ka gaadhsiisnayd nebigan baa ka muuqanaya looxiina waa tuuray alaabtii uu sitee waxiga lagu soo qoray ma aha inuu ihaanaysanayo inuu nacay ma aha oo dee goordhowba wuu qaadan doonaa laakiin cadhadiibaa heerkaa gaadhsiisay ilaahay daraaddii wuu cadhooday alwaaxda ma ihaanaysanayn laakiin ilaahay daraaddii buu cadhooday walaalkiibuu madaxa qabtay qur-aanku meelo kale wuxuu ku xusay inuu garhkana ku daray oo garhka iyo foodda labadaba uu ku wada dhigay muusena dee calayhi salaam nin adadag buu ahaayo haaruun ka sii adaygiisa waxaa muujinaya reer banu israa'iil intii uu maqnaana dibiga way caabudeen markii uu yimina way iskaga tegeen taasi midhka kale ay muujinaysaa waxa weeye arrinta qiyaadada iyo hoggaaminta in xagga quwadda loo leeyahay way sii kala badanta waa laba nebiyo walaalaa weeye labaduba waa rusul laakiin midna way ku ag caabudayeen dibigii reer banu israa'iil midna waxay lahaayeen markuu yimaaduun baanu ka tegaynaa markii uu yimina way iskaga yaaceen marka quwa shakhsiya quwad xagga shakhsigaa oo ilaahay uu bani aadamka siiyo ku sii kala badan baa jirta sidaa daraaddeed baa xagga haybadda idaaradda iyo maamulka lagu sii kala fiican yahay oo asxaabta rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu kala doori jiray arrimaha ah hadday tahay hoggaaminta ciidanka iyo hadday tahay hoggaaminta cibaadada iyo hadday tahay hoggaaminta maamulka gobollada wuu kala yaqaanay asxaabta wuu kala doorayo asxaabta ka mid ahoo haybad badnaayo khushuuc badnaayo cibaado badnaaba haddana nebigu leey innii araaka daciifan abidar la odhan jira abidara waxaan ku arkayaa adigoo daciifee laba qof taliyaha u noqonin oo madaxa u noqonin maalka agoontana madaxa ka noqonin labaduba maamul adag bay u baahan yihiin iyo iska geejin marka isaguna nin nacaan buu ahaayoo laga yaaba arrimaha inaanu ka dabaalan karayn sida kale dee uma dhaliilaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka shuruudaha qiyaadada iyo hoggaaminta ka mid tahay inuu qofku aqoonna leeyahy ammaanana leeyahy awood shakhsiyana leeyahy aqoontuu wax ku hoggaamin laha waa inuu leeyahy ammaanana waa inuu leeyahy oon khiyaamo lahayn intaba ambiyadani way leeyihiin awooddii shakhsiga ahayd ilaahay qofkan uu ku abuurayna waa inuu leeyahay oo tan haaruun iyo nebi muuse ay ku sii kala badan yihin taasina waa midhaynu meesha ka faa'iidayno haaruun calayhi salaam wuxuu arkayaa walaalkiisan muuse qabsaday inuu gar u leeyahay cadhada inuu cadhoodo inuu gar u leeyahay buu arkayaa maxaad u cadhootiyo arrimahaa ma leh laakiin wuxuu isku dayayaa si ay u heshiiyaan taa wuu ka duulayaa cudurdaarre iyo sababana wuu keenayaa in hayni intaa ay ka noqoto iyo awoodi hagrasho si aanu ahayn oo aanu waxba la hadhin buu sheegayaa wuxuu idhi ibna umma ina alqawma istadcafuunii wakaaduu yaqtuluunanii baleegada walaalka xagga hooyo wey ibna umma ina hooyow ninkaanu xagga hooye walaalka ka ahaynow dadku markay walaalaha yihiine xagga hooye ay ka sii walaala yihiin naxariistii hooyadaa iska jirta labada qofee isku hooyaah iyo labada qofee isku aabba ah dadku waxaad mooddaa inay labadaa isku hooye uun si uun isu sii jecel yihiin oo xidhiidhka xagga hooyo iyo bahnimadu mar walba wuxuu yahay mid cajaa'ibkiisa sii leh adiga arkayooo ilmo yacquub maxaa kala kaxeeyey ee labana dhinacay u mareen tobanna dhinacay u mareen tobankii isbahaysi bay bilaabeen isbahaysi waa bahnimo ayaa lagu leey markan lagu leey waa isbahaysi waa bahdii baa waxaan wadataa oo waxay wadataa iskaashi arrin buu u sheegay siroo cajiiba waxa uu horta waa la iga adkaaday itaalubba halkani dhigaye dee umaan yaraysan buu leeyahy dee qofka bani aadamkaana ilaahay wuxuu kula xisaabtamaya istidaacadiisa istidaacadaydii anigu waan bixiyey buu leeyay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha anigu wuscigaygii waan bixiyey laakiin istidcaaf baa meesha ka dhacay waa layga itaal batay si kale kolka loo eego dee qosollo hiilimaad le baa layidhi labadoodu way isu hiilinayeenoo way iskaashanayeen oo laba rasuul bay ahaayeen markii uu midi meesha ka baxay ee haaruun keligii uu ku soo hadhay dee cidlaa laga helay ilaa markay laba yihiin labada laftigoodaa wax weyna hadday keli kaa hesha iyo haddaad laba tihiin oo laba qof oo muddo kala tihiin ummaddan baa muquunin kartaa oo muuse laftiisu haaruun wuu kaashanayaa markanuu soo noqday marka dee keli baa laygu helay buuhi walaal taas waa mid waaba laydili gaadhay buui waa laydili gaadhay haa ayoo dadka marka qadiyaddu ay mabaadi tagto laysu turi maayee muranka way dhaafaysaayoo muruqyay tegaysaa iyo xoog ayay tegaysaa
mid kale uu sii faa'iideeyo wuxuu leeyahay walaal ishaysigeenna cadowgu wuu ku farxaya walaalo isqabsaday cadow baa ku farxa waa run madaxa marka isla gashaan ama ummadaasi ay islayso ama isku bururtay isku baaba'do cadowgu sharaab ku cabaya damaashaad buu samaynaya durbaanuu garaacaya ama ha ku maqashiiyo ama ha qarsado lugtaana lug hadhaydhe buu leeyahy kuwaasina ha naga hadheen waa cadowgayagii dabeetana waxay isku dayaan ummadda islaamka hadiyo jeer cadowga laah inay iyaga ataxriish fii maa baynahum inay isku diraan oo cadowgu si aanu iyaga wax u yeeli karin muslimku marka ay wada socdaan ayuu wax u yeelaa markuu iyaga kala jabiyo marka waa arrin u baahan in aad loogu baraarugo oo istiraatiijiyadda ka mida shisheeyaha marka cadowgeenna inagu farxaya walaa tajcalnii maca alqawmi aldaalimiin taana wuu sheego wuxuu idhi dee dadka kala saaro walaa taziru waasiratun wisra ukhraawi dee ha igu darin ninkan dembiga sameeye cijriga caabuday anuu lama midihi dee kuwa qofka beridiisaa lagu xisaabiyaa midh baa la igu qabsan lahaayoo ummadda maxaad wax uga qaban weyday dee tiina maan hakranin sidaasay ti haddaad xumaanta ka beri noqoto haddaad diiddaad ka dagaalanto ummadda agteeda iyo ilaahay agtiisaba waa inaad badbaaddo marka gartiisii buu akhristay nebi haaruun calayhi salaam nebi muusena wuu aqbalay kolkuu arkay ninkan inuu difaac galay oo looga markhaati kacay in itaal meesha uu dhigay ayuu yidhi dee gar maaha in lagu daraa markaa kuwa ah munkarka iyo macaasida kol haddaad ka beri noqoto kol haddaad ka dagaalanto qowl iyo qalbi iyo ficil intaad karayso kol haddaad samayso waad ka beri noqonaysa ducadii buu bilaabay markaa nebi muuse qaale wuxuu yidhi rabbi ilaahaygow ikfir lii waliakhii anigiiyo walaalka ilaahay noo dembi dhaaf waadkhilnaa fii raxmatik ilaahu naxariistaadana geli waanta arxamu araaximiin kuwa naxariista ayaad u naxariis badanta ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina ittakhaduu lcijla kuwii dibiga samaystay sayalaaluhum qadabun cadhaa gaadhi doonta min rabbihim ilaahooda xaggiisa kaga timi wadillatun dulli baa gaadhi filxayaati dunyaa noloshan adduunyadana waan ku dullayn doonaa buu ilahay yidhi wakadaalika najzi lmuftariin wakadaalika najzi sidaasumaan u abaalinaa almuftariina kuwa beenta abuurta saasaan u abaaliyaabaa ilahay wi dee nebi muuse u aqbalo ducu bilaabay ilaahu noo dembi dhaaf budhaaniya walaalka haa colka iminka labadanunbuu ka hayaa wixii kale way toobad keeni doonaan laakiin isaga iyo walaalkii ayuunbuu iminka hubaa ilaahay buu dembi dhaaf u weydiiyey walaalkii labadaa almakfira dembiba may gelin laakiin haddana addoonku marnaba inuu isdhigta maaha marnaba inuu isbarraxo maaha ambiyadii ilaahay macsuumiinta ahaa ee dhowrsoonaa baynu arkaynaa inay ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan waa midh inagu dhiiri gelinaya goor walba towbadda iyo istikfaarta inaynu badinno si kale haddii loo eego meesha aad joogto haddii wax ka dhacaan wuxuunbaa kaaga soo duulduulaya gaboodfalka iyo xadgudubka marka ilaahay inaad dembidhaaf weydiisatay wey ilaahay buu naxariis iyo dembidhaaf ay weydiisteen alla waxa uu halkan tilmaamay arrintaa dadkii sameeyey waxaa nebi muuse loo sheegay dadkii dembigaa galay waxaa ku dhici doonta cadho alla iyo dulli baa ku dhici adduun iyo aakhiro labadaba macsidaada kol hadday galeen dadku oo gaalnimo ku dhaceen dembi la gala dee gaalnimaa weyn gaalnimadiina waxaa laga dhaxlaa labada arrimood dulli iyo cadho allah ummaddan ilaahay hore wuxuu u sheegay inuu doortay reer banu israa'iil iminkana wuxuu tilmaamay qadab iyo cadho inuu dusha kaga ridayo hore dulli buu uga badbaadiyey dulligii bay dib ugu noqdeen markaa haddii ilaahay dulli kaa badbaadiyo oo adugu aanad qirsanaynba taa dee dib buu kugu celinayaa dulligii ilaa abaalkaagu kaasuu noqonayaa ummaddii doorashadii may aqbalin dulligii bay doorteen baleekada doorashadii ilaahay way diideen dulligii bay doorteen haadaa min aahaari alisticbaad addoonsigii la addoonsanayay baa wuxuu ku reebay inay garan kari waayeen doorashadii ilaahay ay xajin kari waayeen oo dulligii laga soo saaray ay dib ugu noqdaan markaa ilaahay tilmaamay waxa uu leeyahay ina aladiina ittakhaduu alcijla sayanaaluhum qadabun min rabbihim wadillatun fi lxayaati addunya adduunyaday dullaysnaanayaan dee aakhirana macsuumnaanayaan qof kastoo muftariyahoo waxaan jirin ilaahay ka sheego waxaan jirin diin ka dhigo waxaan sax ahaynoo qalada ummadda ku haga muftarigu waa kaa saasumaan u abaalmarinaya alla wuxuu idhi waaladiina camiluu sayi'aat dadka xumaanta sameeyey
uma taabuu min bacdiha xumaanta ka toobad keenay wa aamanuu ilaahay rumeeyey inna rabbaka ilaahaagu min bacdihaa towbaddaa kadib lagafuurun raxiim dembiguu u dhaafayaa oo u naxariisanayaa walammaa sakata can muusa nebi muuse markuu ka aamusay alqadabu cadhadii kolkay ka aamustay akhada alalwaax looxaantii buu qaatay wa fii nuskhatihaa qoraalkeedana waxa ku sugan hudan waraxma hanuun iyo naxariis ayaa ugu sugan liladiina kuwii hum iyagu lirabbihim ilaahooda yarhabuun ka cabsanaya hanuun iyo naxariis baa ugu jira saasaa ilaahay u tilmaamay bushaaru ilaahay bixiyayo reer banu israa'iil oo keligood aan bushaaro ahayn laakiin ummadoo dhanba bushaaro ah bushaaradaas waxa weeye qofku hadduu dembi galo oo macsiyo uu ku dhaco macsiyadaasi ta ugu weyn gaalnimaba ha ahaato sidanay dee nimankaniba u gaaloobeen ay dibiga u caabudeen oo qofkaasi toobad keena intuu macsiyada galay kadib noocay doonaysa ha ahaato towbad miyir qabto oo shuruudeedii leh toobaddu shuruuday leedahay ilaahay waa ka aqbalayaa والذين عملوا سيئات marka hore xumaan bay sameeyeen ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم توبدا dabadeed ilaahay kol haday toobad iyo iimaan caafimaad qaba isku dareen ilaahayna ay rumeeyeen una toobad keeneen oo ogaadeen inuu ilaahay naxariisto dambiga dhaafo waan ka dhaafo waan naxariisto bishaaradaas ilaahay u laakiin da shuruuda lagu xidhayaa wadiga arkay qofku waa inuu macsiyadii iyo dembigu faraha kula jiray kala baxaa sida ay uga tageen dembiga caabudadiisa koow waa inuu go'aansadaa inaanu dib ugu noqonin waa laba waa inuu ka xun yahay sida ay uga xumaadeen walamaa suqita fii aydiihim ilaa way ka murugoodeen waa macaasi hadduu dembi bani aadam ka gashay yahay xoolo haddaad ka qaadatay u celi haddaad sharaftiisa meel kaga dhacday iga saamaxdhe waa afar shardiga shanaadna waxa weeye towbadda wakhtigeeda in la marayo haddii gantaalihii ilaahay iyo cadaabkii soo daadanayo ama cunaha ay naftii kuu marayso ama qorraxdii halkaa ay ka soo baxday dee tooba lagaa dhaafi maayo dayacta alwaqt wakhtigii baa dayacday marka towbaddu waa inay wakhtigeeda marayso shantaa shardi ayaa towbaddii ku xidhan oo intubana caqligala waana cilmi waana caqligal shantuba dee oo iminka hadduu qofkii macsiyadii faraha kula jiro oo leeyahay inna allaha qafuurun raxiim dee ilaahay dembiga wuu dhaafaaye maxaa arrimaha ka soo cidhiidhaysa macsiyadiina wuu ku jiraa waan markaa tiraa iska daana wuxuu le war ilaahay dembiga wuu dhaafaa diinta idinkunbaa dadga u adkaynaya maxaa laga dhaafi dee ama wuu toobad keenay wuxuuse leeyahay waan goordhow baan ku noqon doonaaye goordhow baan samaynoo waan ka toobad keenayo waan samaynoo waan ka toobad keenay waa ciyaartaasina tuubuu ilallaahi towbatan nasuuxan towbaddii nasuuxa ayd maaha waan ku noqon doonaa buu leeyahy ama xaq bani aadan buu hayaa waan ka toobad keenayna wuu leeyahy dadka xoolahoodii buu haystaa oo karaamo dhiiggoodii buu haystaa oo karaamadoodii buu meel kaga dhacay oo waa la sugaya xaggiisaa la soo eegaya oo wuxoodii uu xambaarsan yahay waantaan toobad keenay buu leeyahy masaajidku galo xajku tegayba khalaas sawtaan toobad keenay daarahoodii iyo duunyadoodii iyo dadka wuxoodiina uu xambaarsan yahay dee isnadiif iyo akhi waad xambaarsan tahay iska reeb waxaanaad ku raran tahay iska reeb ee balaayadan markaasaa toobadda laga aqbalayaa ama marka uu ilaahay xusuustay waxa weeye markii lagu adkeeyey lagu giijiyey ee naftu sii baxayso yuqbalu tawbatu alcabdi maa lam yuqarqi haddii aanay halkaa naftu soo gaadhin inta ka horraysa waa laga aqbalayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam toobadda addoonka marka wuxuu ilaahay xusuustay kolka indhihiisu cirka usii jeesanayaanu sakaraadka yahay maya taasina waa bacda fawaati lawaan intaad wakhtigii lumisay wey waxaa inoo geeyey toobadda waynu u baahannay mar walbana dembigu wuu inaga dhacayaa laakiin toobaddu unbaa u baahan dadku inay fahmaan inay leedahay ku xisaabtan towba ilaahay uu shardi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi tawbatan nasuuxa ribada iska daa oo beenta iska daa oo sinada iska daa oo khiyaamada iska daa toobaddaadu markaasay tahay toobad caafimaad qabta ilaahay laguma ciyaaro subxaanahu wa tacaala addoommahaan kaa aqbalaynin inaad u soo noqoto adoo wixii ay isku layseen gacanta kula jira waxay ku leeyihin dee ismaynu fahmin weli adigaa godobtii baabad weli gacanta ku haysaaye
ilaahay maxaad u malaysay subxaana wa tacaala walilaahi almathalu laclaa nebi muuse cadhadii baa ka aamustay walamaa sakata can muusa alqadab waakhada lalwaax cadhadii baa ka aamusay buu ilahay macnaheedu waxa weye cadhadii baa ka degtay laakiin eraygu ilaahay dooray waxa weeye cadhadii way ka aamustay waxaa laga fahmayaa cadhadaa aad u badnayd way badnayd ilaa loo egaysiin karayay cadhadan inay ka dhignayd qof dabada ka riixaya oo diraya oo kan samee saasoo kale leh cadho la hadlaysoo kale ahayd siduu cadhooday farabadnaanteedii way ka degtay looxaantiisii buu iska qaatay dabcan inaanay burburin aanay baabi'inay looxaantii jirtaaba halkaa laga qaadanaya looxaantana faa'iido weyn baa ugu qornaayoo hanuun iyo naxariis baa ugu qornaa hudan waraxma waayo waxyiga ilaahay xaggiisa ka yimaadaa wax la dayaco la duudsiyaba maahee waa naxariis iyo hanuunuun dee innaguna labadaasaynu u baahannay haddaynu naxariis adduunyo hello oo hanuun adduunyo aynu hello oo naxariis aakhire aynu hello maxaynu weynay dee naxariis iyo hanuun la heliyaaba barakaa la helay badbaadaa la helay barwaaqaa la helay haddii kale balaayaa dhacaysa dadku waxay doonayaan adduunyaha helaane haddaanay hanuun hayn naxariistii ilaahayna ka maqan tahay dee maxaa barakee yaalla ilaahay owna hanuuniyo na hagaajiyo na horu mari oo naxariistaadana sii waa in lagu ducaystaa laakiin naxariista sideedaba iyo hanuunka yaa ehel waa talow yaa arkaya inay qiimo leeyihin liladiina hum lirabbihim yarhabuun aayadda saasuu ilahay wa fii nuskhatihaa waxa ku qornaa looxaanta hudan waraxma hanuun iyo naxariis liladiina kuwiiba ugu qornaayeen hum iyagu lirabbihim yarhabuun ilaahooda ka cabsanaya waxa weeye rahbadu waa khawfka iyo taqwada iyo cabsida waa inuu qalbigaaga ilaahay ku weyn yahayoo goor walba ilaahay aad dareemayso inuu ku arkayo inuu ku eegayo inuu muraaqabadiisii kula socoto malaa'igtiisii uu kuu dirtay marnaba aanu ku moogayn taa waa inaad dareento marka dadka alla yaqaanka ilaahay ka cabsanaya ilaahay aanu la fududayn kuwaasii baa naxariis iyo hanuun ka faa'iidaya kii kalena aan ilaahay u jeedinna hanuunna mu helin naxariisna mu helin marka saasaa ilaahay ku tilmaamo arrinkii markuu halkaa marayo dee waxa ku sii xigaa waxa weeye nebi muuse calayhi salaam arrimihiinu isku hagaajiyo iyo ummaddii le bahal baa ku dhexdhacaye ummaddu iyagoo isku duuba nebi muuse ka tegoo rasuulna uu kaga tegey bahal baa ku dhexdhacay ila shaydaankii ehelkiisu waa bahaleh waa kaa kala firdhiyey dabeetana dakharraduu geystay iyo dubarayaashu la dhacay ayuu toostoosiyeyoo hagaajiyeyoo dhaawacii buu dhayay ilaan dhaawac ka weyni ma jira caqiida xumada iyo cibaada xumada iyo ilaahay oo laga durko ma dhaawac ka weyn baad garanaysa waa dhaawac soo gaadhay dhegta iyo sharafta iyo mustaqbalka iyo adduunyo iyo aakhiraba dadka soo gaadhay marka waxaynu arki doonnaa aayaadka dambe insha allahu tacaala isagoo ummaddii isku ururinaya ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inoo hagaajiyo caqiidada iyo cibaadada inoo barakeeyo dad iyo duunyo waxaynu hayno وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى